qisada Nabi Yuusuf waxa uu Eebbe ku tilmaamay inay tahay qisada ugu wanaagsan ee ku soo aroortay Qur'aanka Kariimka ah iyo weliba kutubta hore ee Eebbe soo dejiyay. Nabi Yuusuf waxa uu ka soo jeedaa qoys wada nebiye ah, sida awgeed ayaa loogu yeedhaa Kariim ibnu Kariim ibnu Kariim ibnu Kariim. Sidaan la socono, Nabi Yuusuf waxaa dhalay Nabi Yacquub, Nabi Yacquubna waxaa dhalay Nabi Isxaaq, Nabi Isxaaqna waxaa dhalay Nabi Ibraahim al-Khaliil. Qisada waxay ku bilaabanaysaa Nabi Yuusuf oo riyo ku arkay 12 meerayaal, qorraxda iyo dayaxa u sujuudsan. Nabi Yuusuf waxa uu uga warramay riyadiisa aabihii Nabi Yacquub, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Nabi Yacquub waxa uu gartay in wiilkiisa yar la imtixaani doono, markaasuu ku yidhi, wiilkaygiiyow, ha uga warradaada walaalaha. Sababtoo ah Nabi Yacquub naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu dareemay in Yuusuf walaaladii ay xaasidin yihiin, shaydaankuna ku diri karo. Nabi Yacquub waa jeclaaday wiilkiisa Yuusuf maadaama uu ku arkay sifooyinkii nebiyada iyo akhlaaqdiisa wanaagsan darteed. Nabi Yuusuf walaaladii oo ahaa 10 wiil oo isku hooyo ah ayaa xaasid u qaaday Yuusuf iyo walaalkii Benyamiin. Waxay dareemeen in aabahood aad u jecel yahay Yuusuf iyo walaalkii Benyamiin, waxayna isweydiiyeen siday ku dhici karto in aabahood ka fadilo Yuusuf. Iyagoo koox xooggan ah, waxay aabahood ku eedeeyeen inuu ku sugan yahay baadi oo arrintaas aan sax ahayn. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Yuusuf walaaladii tashadeen oo go'aamiyeen inay ka takhalusaan Yuusuf, kadibna ay ku soo hadhaan iyagoo aabahood, kadibna ka toobad keenaan dembiga. Sababta ay u dhagrayeen Nabi Yuusuf waxay ahayd oo keliya, muxuu aabahay isaga uga jacayl badan yahay xaggeena Yuusuf? Mid ka mid ah walaaladii ayaa yidhi, ha dilinina Yuusuf ee ku tuuray ceel salkiis, ha qaataan dadka safarada. Go'aankii ayay isku raaceen, kadibna waxay u yimaadeen aabahood Nabi Yacquub oo ku dhaheen, aabbow, maxaad noogu aamini la'dahay Yuusuf annagoo u nasteexaynaynaa? Nala dir beri si uu noola ciyaaro, waan ilaalinaynaa. Sidoo kale waxay jacayl been ah u muujiyeen walaalkood Yuusuf oo ah wiil yar oo aan qaan gaarin. Yuusuf wuxuu mooday markii ugu horreysay uu la ciyaarayo walaaladii, sababtoo ah waqtiga inta badan waxa uu la qaadan jiray aabihii. Walaalihiisana waxay u muujin jireen cadaawad iyo xiqdi. Nabi Yuusuf ma dareensanayn in walaalihii dhagar u maleegayaan. Habeenkii waxa uu seexday isagoo aad u faraxsan oo isle waxaad la ciyaari walaalaha. Nabi Yacquub naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, waxa ay warwargelinaysaa inaad la tagtaan Yuusuf kadibna iyadu cunto idinkoon ogeyn. Yuusuf walaaladii waxay dhaheen, sidee iyadu cunaysaa anagoo ah koox? Hadday dhacdana waxaan ka mid nahay kuwa khasaaray. Nabi Yuusuf naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waa faraxsanaa oo wuxuu maqlayay walaaladii oo ballan ka qaaday aabahood inay ilaalinayaan. Hase ahaatee Nabi Yacquub wuu dareemay inay jirto dhagar qarsoon. Nabi Yacquub waa ku aamin wiilkiisa yaraa walaaladii, waanay la tageen Yuusuf, kadibna ka saareen shaatiga uu sitay kuna tuureen ceel salkii, ayagoo ku qoslaya oo ku leh, Yuusuf oo aabbaha uu ku jeclaa, maantana waxaad ku jirtaa ceel salkii. Yuusuf waxa uu qabsaday dhagax yaalla ceelka salkiisa, kadibna waa u yeedhay walaaladii, laakiin dheg jalaq uma siin, way iskaga dhaqaajiyeen. Nabi Yuusuf waxa uu dareemay cabsi, waxaanu xasuustay aabihii iyo siduu u jeclaa iyo sida ay walaaladii intay ceel dhigeen uga dhaqaajiyeen Yuusuf. Maxaa yeelay Yuusuf waxa uu ceelka ku jiray dhowr maalmood, waxaanu dareemay gaajo iyo wehel la'aan. Sidoo kale mugdiga ceelka iyo cidlada ayaa u sii dheereed. Walaaladii waxay gowraceen lax, kadibna shaatigiis ayay ku masaxeen dhiiggii, waxayna u tageen aabahood xilli habeen ah ayagoo oynaya. Waxayna ku dhaheen aabahood oo aad ugu walwalsanaa oohintooda, aabbow, waanu tagnay annaga oo ordayna, tartamaynaa. Yuusufna waxaan kaga tagnay maryaheena si uu u ilaaliyo, waxaana cunayaydii. Markaasay siiyeen shaatigiisii oo dhiig been ah leh. Kadibna aabahood Nabi Yacquub waxa uu ku yidhi, saas ma ahee ee naftiina waxay idin qurxisay arrin, aniguna waan sabri, eebbahina waan talo saaran. Nabi Yuusuf naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee intuu ceelka ku jiray ayaa Eebbe u waxyooday inuu maalin maalmaha ka mid ah walaaladii uga warrami doono waxay ku sameeyeen. Nabi Yacquub waxa uu guda galay inuu eebbihii baryo kuna samro dhibta soo gaartay. Dhanka kale ceelkii agtiisa waxaa yimid
dad socoto ah oo doonay inay waraabiyaan xoolahooda. Kadib waxay dul yimaadeen ceelkii, markaasay tuureen wadaantii si ay biyo u soo qaado. Markuu Yuusuf dareemay in dad dul joogaan, ayuu qabsaday wadaantii. Dadkii socotada ah ayaa dhahay, wadaantu way culus tahay. Kadibna way is-caawiyeen oo soo saareen wadaantii. Si lama filaan ah ayay u bishaaraysteen oo dhaheen, waa bushaaro, waa wiil yar. Dadkii socotada ahaa waxay ka tageen Falastiin, iyaga oo ku wajahan waddanka Masar si loo gado wiilka yar ee ay heleen. Nebi Yuusuf waxa uu noqday addoon la kala gato. Kadibna waxay ku iibiyeen qiimo aad u hooseeya. Waxaa gatay Casiis, wasiirkii Masar, oo geeyey gurigiisa. Waxa uu ku yidhi kii gatay xaaskiisii, wanaaji wiilkan oo ixtiraam, waxay u dhowdahay inuu na anfaco ama aan ka yeelano ilmo. Nebi Yuusuf, naxariistii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, markuu qaangaadhay oo xoogaystay, ayuu Eebbe siiyey xikmad iyo cilmi. Nebi Yuusuf markuu xoogaystay oo qurux batay, ayay naftiisa dalbatay tii uu la joogay ee xaaskii Casiiska. Kadibna waxay xidhay albaabada iyadoo isqurxisay. Markaasay ku tiri, kaalay oo waxaad rabto sameey. Nebi Yuusuf waxa uu xasuustay Eebbihii abuuray oo waxa uu ka cabsaday in uu ku dhaco zino. Markaasuu yidhi, Eebbe ayaan kaa magan galay. Nebi Yuusuf waa uu ka orday isagoo isleh albaabka ka bax, balse waxay qamiiskiisii ka goysay gadaal, waxayna kula kulmeen ninkeedii iridda agteeda. Casiiskii xaaskiisa waxay ku tiri ninkeedii, maxaad ku abaalmarin qof xaaskaada la doono xumaan aan ahayn oo keliya in la xidho ama la ciqaabo cadaab daran mooye? Nebi Yuusuf waxa uu dhahay, ayada ayaa igu xadgudubtay oo nafteeda ii dalbatay. Markii arrinta adkaatay, ayaa waxa uu marag ka tirsan ehelkeeda oo dhahay, haddii qamiiska Yuusuf ka go'an yahay xagga hore, ayada ayaan run sheegay, isna waa beenaale. Haddiise qamiisku ka go'an yahay xagga dambe, waxaa been sheegaysaa waa xaaskaaga, isagana waa run sheege. Markii ay arkeen in qamiisku ka go'an yahay xagga dambe, ayuu ninkeeda yidhi, Yuusufow, ka jeedso arrintan, hana faafin warka. Wuxuuna xaaskiisa ku yidhi, adiguna ka toobadkeen ficilkan xun, waxaad ka mid tahay kuwa gafaye. Si kastaba ha ahaatee, waxaa faafay warkii, waxaanu gaaray dumarkii magaalada, ayagoo leh, xaaskii Casiisku waxay khaadimkeeda u doontay nafteeda oo waxay damacsaneed in ay ku xadgudubto. Waxaa qaaday jacayl daran. Xaaska Casiisku markay maqashay dhagarta haweenka, ayay marti qaaday, kadibna u dhiibtay mid kasta midi. Kadibna waxay amartay Yuusuf inuu soo baxo. Markay arkeen haweenkii Yuusuf, ayay gacmaha iska jareen oo dhaheen, kani ma aha bashar ee waa malag sharaf leh. Markay isgooyeen faraha, ayay xaaskii Casiisku tiri, kaasi waa waxay ku canaanayseen, aniga ayaana nafteeda u doonay. Haddii aanu samayn waxa aan farayana, waa la xabisin, waxaanu noqon kuwa dullooba. Nebi Yuusuf waxa uu Eebbe ka baryay inuu ka jecel yahay xabsiga waxay haweenka ugu yeerayaan. Eebbena waa ka aqbalay. Markaasaa la xabisay Nebi Yuusuf isagoo aan wax gaf ah gelin. Waxa uuna xabsiga ku xirnaa muddo badan. Intuu jeelka ku jira ayaa waxaa arkay 2 nin oo dhalinyaro ah oo kula jira xabsiga. Markaasay weydiiyeen Nebi Yuusuf inuu u fasiro riyo ay arkeen. Yuusuf, waxaan arkay riyo anoo miiraya khamri. Halka kii kalena uu yidhi, waxaan arkay aniga oo madaxa ku sida sabaayad ama muufo aynu cunayso shimbir. Ee nooga waran fasiraadeed. Waxaan kuu aragnay inaad tahay samafalayaashe. Yuusuf waxa uu ku dhahay, waa idin fasiri riyadiina intaan cuntada la idin keenin ka hor. Waxaan ka imi qoom aan Eebbe rumaysanayn. Waxaan raacay diintii aabbayaashay ee Nebi Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub. noomayna sugnaan inaan Eebbe cidka la wadaajino. Nebi Yuusuf isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi, saaxiibadeyda xabsigu ma waxaa wacan ilaahyo fara badan, mise Eebbaha weyn ee awoodda leh? Waxaad caabudaysaan waa sanamyo aad idinka samaysateen. Eebbana uma soo dejin wax xujo ah. Xukunkan waxaa iskale Eebbe, waxaanu idin faray inaad Eebbe keligii caabudaan, taasina waa diinta toosan. Nebi Yuusuf markuu dhameeyey wacdigii, ayuu u fasiray riyadoodii. Waxaanu dhahay, saaxiibadeydow, midkiin waa la sii dayn oo waxa uu waraabin sayidkiisa khamri, ka kalena waa la dili doonaa, kadibna waa la salbin oo shimbiruhu madaxiisa ayay cuni. Haddaba la soco qaybta xigta.